sideed u wajahaysaa aad ula kulmaysaa caqabadaha nolosha waa inaan fahnaa changes koodhani adiga kaama imaadaan isbedelo waxa jira nolosha ka yimaada oo adiga caqabad kugu ah mana jiro qof noloshoo dhani wada smooth ahayd almost everyone noloshu mar ama laba jeer buu arki doonaa dhowr marar badan buu arki doonaa caqabado iyo rafaad iyo kuf iyo kac iyo waxa laakiin qofku sida uu u arko caqabada ee uu u macnayso ayaa aad go'aaminaysa difference iyo farqa u dhaxeeya giving up or achieving success inuu qofku waxa faraha ka qaado oo isdhiibo oo iska dhaco iyo inuu qofku waxa guul caqiibo leh ka gaaro natiijo macnale inuu ka sameeyo labadaas waxa kala saaraya attitude ka xagaa waxa imanaysa markaad la kulmayso wajahaysa caqabado waxa muhiima caqabada saad u aragto a friend of mine nina saaxiibnahay oo aadan u jecelahay caqabadaha weligii markii mushkilad iyo caqabada ama kadeed haysto magac buu bixsaday inagu problems baan idhahnaa waxa inagu dhaca waa aad mushkilad isagu laakiin projects buu yaqaan waa mashaariic markaad yara wacdo ama aad waxoogaa la sheekaysato eed weydiisanayo seetay maanta niyow mashaariic yar baan faraha ku hayaa buu ku odhanaya markaa mashaariicna waad garanaysaa waxay kaaga baahan tahay waqti kaaga baahan tahay attention waxay kaaga baahan tahay inaad supportka saaxiibada iyo dadka waxaa xallin kara aad raadsatid marka aad baan uga helay aad baan u jeclaaday instead aad odhan lahayd caqabad baa haysto mushkilad baa haysto dhibaato haysta mashruuc baan gacanta ku haya marka maskaxdaadu sidee u aragto mashruuc iyo sidee u aragto dhibaato way kala duwan tahay marka dhibaatada mashruuc u macnayso maskaxdaadu waxay keenaysaa possibility kasta oo mashruuc sidii loo xallin lahaa halka markaynu marayno positive attitude baa muhiim baan niri marka caqabado nololeed baa mar walbayna hor imanay intaan safarkan ku jirnay maxaa lagaga baxaya dee waa hab fikir saxan in aanad balaayada buur leekaysiin in hal shay oo maalintaada ka xumaa una maalintaadoo dhan inay fool xumeed u ekaysiin marar badan waa iska caadi waxaad odhanaysaa hal shay baa kaa xumaanaya maalin markaa guriga tagta ka hor maalintaada lagu waxaad odhanaysaa it was a bad day maalin xun bay ahayd laakiin nasiib darro adigaa maalinta dhan madoobeeyey ficil yar oo shay dhacay oonad jeclaysan darteed haddaad dib u booqato maalintaada milyan shay waxa jira ku wanaagsanaa oo ay ka mid tahay inaad caafimaad qabtay inaad neefsanaysay inaanad dhibaato kale kugu dhicin oo weyn inaanad dhiman in ma aragtay aanu loos weyn ku gelin in waxaad ka cabanayso wax ka weyn inuu kugu dhicin ma dareensanin laakiin waxaad dooratay in dhibic yaroo madow oo maalintaada ku dhacday aad maalintii dhanneed ku shaambadayso marka positive attitude baa badbaadadu waa inaad adduun arag wanaagsan oo buunbuuninta iyo balaayo sheeg uu ka reeban yahay inaad isticmaasho